Xasan Sheikh waxa uu doorbiday in uu noqdo madaxweyne beeleed waayo waxaa ceeb ah ama khiyaano qaran lagu tilmaami karaa marka uu Xasan Sheikh ogolaaday in dowladaha dariska mid ka mida ay tiraahdo waxaan dhexdhexaadinaynaa dal arrimihiisa gudaha. Aaway wasiirka arrimaha gudaha? Aaway wasiir fiqi? Ismaaciil Omar Geele ma xaq buu u leeyahay in uu farageliyo arrimaha gudaha Soomaaliya mase ogol yahay in arrimaha Jabuuti la farageliyo? Tusaale ahaan qoomiyadda Canfarta waa dadka ugu badan ee Jabuuti dega haddana quri caaradiisa ayuu ku haystaa. Mana ogola in wax laga weydiiyo xasaradaha Jabuuti ka taagan. Culummadii iyo aqoon-yahanadii Canfarta dalka Jabuuti way iskaga carareen. Dayac iyo dulmi badan ayaa loogu geystaa Jabuuti qoomiyadda Canfarta. Dalka Soomaaliya ayaa madaxweyne ka ah Ismaaciil Omar Geele mise Xasan Sheikh. Yaa dalkan loo dhaariyay in uu ilaaliyo calanka iyo ciida Soomaaliya. Xasuus dhawaa ma umulbaa ayaan maqli jiray Ismaaciil Omar Geele sookii dalka Kenya uga hiiliyey Soomaaliya markii Kenya diyaaradaha ku garaacday qayb ka mida xuduudaha Soomaaliya. Ma dhulbahante ayuu har u jiidayaa? Xasan waxa uu noqday nin la maamusho. Dulmiga iyo munaafaqada keligii taliya Ismaaciil Omar Geele waa in xal loo helaa, waana in cadaalad lala raadiyaa qoomiyadda Canfarta si xal loogu helo mashaakilaadka ka taagan Geeska Afrika. Madaxweyne Xasan waxa uu doorbiday inuu noqdo madaxweynaha dowlad deegaanka gobolka Banaadir. Waayo madaxweyne Xasan Sheikh waxa uu ogolaaday in dalka arrimihiisa gudaha cid kale ka arrimiso halka dowladda Itoobiya ay diiday in faragelin lagu sameeyo arrimaheeda gudaha markii jamhadii Tigrayga iyo xukuumaddii Abiy Ahmed isqabteen. Madaxweyne Xasan intaa ma garan waayey? Dowladda Xasan Sheikh uu hogaamiyo waxa ay dhaqan iyo caado ka dhigatay ku xadgudubka qawaaniinta dalka u yaalo. Cid wax iska weydiin doontana ma jirto, waayo dalku malahan baarlamaan karti leh lana xisaabtami karo xukuumadda sababtoo ah xildhibaanada intooda badan maahan kuwa wax qoro ama akhriyo.